waxa uu ka xanaaqa kelmadda ilaahay baan la kaashanayaa kelmadda ilaahay baan la kaashanayaa waynu ognahay oo waa kelmad wanaagsan wax laga xanaaqana maaha laakiin ha yaabin waa sheekadeena markan iyo qiso aad u qosol badan oo ka soo martay nin sheekadan amba kelmaddaasi waxa uu yidhi taariikhdu waa 1993 ilaa 29 meelaha waa xilligii dhulka Soomaalida ay dawladuhu burbureen ee ayna dawlad xoog leh ka jirin marka waxaan u safray buu yidhi magaalada la yidhaaha Dhagaxle ayaan iska gaaray oo jigjiga magaalo ka shaysi weeyaan waxaan fadhinaa buu yidhi goob baranda ah oo maqaaxi ah oo lagu karinayo shaah iyo qaad iyo waxaan cunanaa buu yidhi oo waanu qayiranaa deegaanadana qaadka ayaa caanka ah waxaan fadhinaa barandaha oo aan ku qayiranaa waxa ila fudud buu nin uu qaad badan hor yaalo oo labada luuqadoodba ku hadlaya waa af Soomaaliga iyo Oromada qaad badan baa hor yaala waa uu qayirayaa buu laakiin isma garanayno anna waan iska ag fadhiyaa niman badan oo sheekaysanayana waan iska sheekaysanana anna waan qayirayaa waa caleentii qaraarayda ee Soomaalidu caanka ku ahayd marka wuxuu yidhi waxaan iska fadhinaba oo ninkiina uu fadhiyaba waxa meeshii soo maray buu yidhi amba soo istaagay nin xanuunsanaya oo kaariyon lagu wado oo 3 qof ilaa dhowr qofna ay wadaan gaari inay ku qaadaan ay la doonayaan ninkii igara fadhiyay ayaa la hadlay oo maxaa ku dhacay buu yiri waxa ku yiraahdeen lugu iyo gacan ayaa bakhtiday oo faalug ayaa ku dhacay marka gaari baan la raadsanana ma xasuusan karo buu yiri inay herar gaari u saarayeen iyo inay jigjiga u soo saarayeen laakiin wuxuu yiri gaari bay la raadinayeen marka wuxuu ku yiri buu yiri kalmad buu ku yiri wuxuu ku yiri anigu ilaahay ma la kaashadaa way soo istaageen dahay la kaashay bay ku yiraahdeen ilaahay la kaashanaysa maxaan u diidana oo uu caafimaadayo wuxuu yiri aniga ilaahay la kaashanaya ee sidan sameeya wuxuu ku yiri su'aal buu weydiiyay wuxuu ku yiri lacag xalaal ma haysan haabay ku yiraahdeen buu waxaad soo iibsaan buu yiri 2 maxaad amba mudac waa xiro dhudhuunood wax lagu talo inaad garanaysaa jecla iyo jaqaf dhuxula amba in yaro dhuxula iyo xabad gargara inta soo iibay buu halkana keena waan haynaa weeyda degdeg nin xanuunsan samax nin buu ka boqol talisay baa leeydi markiiba way soo yaaceen intii bay soo diyaariyeen halkiiba ugu keeneen buu ninkiina kaaroon bay ku wadaan ninkan lugiga gacan ma shaqeynayno kaaroon baa lagu riixayaa xilliga kulay gaadiidkuna sidan fudud ma ahayn marka kaaroon baa lagu riixayaa ninkii waxa uu yiri halkii may soo qabteen dabkii buu shiday dabkii kolku casaado dhamac noqday ayuu labadii maxaad geliyay labadii maxaad buu sugay kolka dhamac noqday inay casaadeen ayuu ninkii soo qabta ninkii baa halkan la keenay wuxuu yiri maxaarkii oo gebigiisuba casaaday birtu kolkay macnaha dabka la geliyo way casaata oo dhuxusha way eegata ayuu saayir soo qaaday wiil farahana macal waxa iska mu qaban saayinta soo qaaday ayuu wuxuu ninkii qabtay yiri barta suulka cidida dusheeda ayuu kaga qabtay uu ka dhax saaray kolkay baashu kulushay markaa ka dhax baasaa jif haddana tii lugta ayuu ka dhax saaray tii labaadba meesha wangiin ayuu ninkii cabaad ku dhuftay oo qof kolku faali ku dhaco dama damqado markiiba wuxuu intuu damqaday ayuu cabaad ku waashu iga daayo orod buu bay sii daayba ninkiiba uu kacayba bas waan bogsaday wuxuu ku sii soco haddana soo yar orod haddana sii soco anu waan eegaya waxaan ogaa faaligu ilaahay dahay naga hayay in uu deegaanada Soomaalida ku badnaa halkiiba maskaxda ku qabsaday ninkii lama hadalba ninkan waaba ku kacsanaaba ninkan wuxuu ka sheekeynay laakiin markuu aan arkay baan bismillaahir rahmaanir rahiim arintiina hoostan ka qaatay wuxuu yiri saasan waan leeyahay waxaan heshay waxaan helay waxaan isleeyahay waxaan heshay arintii aad Soomaalida magac kaga helay ama lacag ba kaga sameey lahayd ayaa heshay isla maanta intaas uu tahay sidii maan ku qaatay fikradii ninkii waan sheekaysanay nin iska suufiyo oo kolbada wax ka sheekeynay waxa hatta lacag bi soo dhiibay marka Hargeysa tagto lacagta qof ka qaadan doona islaam bay timo lacagtiga qaadatay aan cidina igu soo ballamiyay sidii ma iska haabuur anoo sidii iska bayloobay ayaa wuxuu yiri taariikh waxoogaa ka dambeysay ayaa nin ganacsada ah oo reerka ayaa u raacay buu yiri magaalada Saylac oo milix u dooray gaarigiisa iska raacay oo aan iska soo indheynay anaguna marka wuxuu yiri
maqaaxi sidii u eg oo iyaduna baranda oo magaalada saylac ku taalla ayaan halkii iska fadhiyay oon ku qaylayay buu yidhi markaa magaalooyinka xeebaha cadiireer waxbaa lagu dul qaylaa ama la fadhiistaa halkii baan iska fadhiyay buu jabbo waa ka dambeeya wuxuu yidhi anigoo sidii u fadhiya ayuu nin kaariyo lagu sido oo 3 qof ama 2 qof ay ku riixayaan oo sidii oo kale aanan weydiin inay gaadhi la doonayaan iyo inay dhakhtar u wadaane markaasaan ku yidhi ninka maxaa ku dhacay sheekadii baan maskaxda ku haystaa ninka maxaa ku dhacay markaasaan ku yidhi buu yidhi waxaa ku dhacay markaasay yidhaaheen buu yidhi faarig baa ku dhaco lug iyo gacan baa baktido waa sidana markaasaan buu yidhi markaasaan yidhi anigu ilaahay ma la kaashada markaasay yidhi hay la kaasho markaasaan yidhi buu yidhi lacag ma haysaan kolkaa ma odhan buu yidhi lacag xalaala ma haysaan oo markii dambe maskaxdii dee tuutuujiyey lacag ma haysaan maan ka bilaabay anigu lacag xalaala kuma darin halkiibay waan haynaa soo iibiya jaqaf dhuxula 2 mudac iyo girgirina uu ag yaali buu yidhi maqaaxidaaba lahaydba way soo iibiyeen waan ku guray labadii maxaad baan ku riday way caddaadeen daanu lama soo qaadi kare waxaan iskaga qabtay buu yidhi wax yaroo warqada ayaan wax yaroo dee jirifaan iskaga qabtay si aan igu gubin aan soo qaaday soo qabtaan ku yidhi ninkii suulkaan kaga qabtay buu yidhi nash kii wuu cabaaday maaha kani wuxuu yidhi waaba isoo eegaya macnaha maba damqanayo waaba indhaku eegu leey waa sida halka u dhagee waaba indhaku soo eegaya markaasaan yidhi buu yidhi labay hayn marxaadhadu soo qabo lugtaan ka geliyay cudidii lugtaan ka dhex saaray waaba indhaku eegaya maba damqanayaba markaasaan yidhi buu yidhi wallaahi badbaad gashay markaasaan yidhi buu yidhi gurigaad geynaysaan insha allah wuu caafimaadayaa dhowr saac kadib markaa gurigaad iminka iska geynaysaan wuu iska caafimaadaya wuxuu yidhi xaaladdu inayna sidii hore ahay ma arka ninkii guriga geeyeen dhowr daqiiq in yar kadib ninkii lugtiiyo gacantaba waa barareen buu barar bay sixdheen in yar kadib waa la yimid buu yidhi iyadoo wuxuu yidhi majooyin muxuu ahaa baalkii golxabka ahaa ee deegaanadaas caan ku ahaayeen iyo qoryaba labataba gaadhkaaba laga qabtay halkaa kama kici karti wuxuu yidhi haddaan ma kaadi tegi karo gaadh baaba laga qabtay waa nin baa kuu dilan ninka waa dishayaadeen halkaa waxaa lagu yidhi aad iska dulqaadiye ninka rag baaba yaa ka fadhiistay buu yidhi qoryo wata saan ilaah baa yaabi keenay buu yidhi xataa suuliga waa la ilaalinayaa buu waxaa jiray nin xanuunsanaya oo maalinnimadii markii aan meesha ku qaylayay qaadka igala carcararayay waa aroortii dambe ninkana sidii buu baransan yahay waaba kasii darayba xaaladdu waa cirka ma baxsan karo oo meeshu waa magaalo iska bannaan oo la arkaya markaan sii socdo gaadhigiina midix buu gaadhigii ma fuuli karo ninkaasi u bixin baa la isku hibilamiyey markaa wuxuu yidhi waxaa jiray nin xanuunsanayo qaadka igala cararayo oon kolkol qori qaada siinayo war naga tagtahay ninkii meelahan maraya waa nin dee qof xanuunsanayo dhar uskaga xidhan markaasuu buu yidhi maxaa ku helay markaasaan ku yidhi nin bad baan galoo nin baa nintan daweys yidhi ayuu dee xaaladdu qaldantay oo maxaa ku dhaco madax baan ku midoobo bararo mu barare ha xaggana buu yar kacay buu yidhi caleen yaroo caleenta qaadka inay ahayd aanan iminka sixi karin umu ninkii buu soo qaado inamarin buu yidhi ninkii dhoogay nimankii baan ku yidhi inamari way kaxeeyeen ninkii wuxuu yidhi labadii waan u galnay labadii meeloodeen kaga muday madaxa unbuu caleenta yarad ka saaray ninkii saan buu saaray markaasaan wuxuu yidhi in yar kadib ninkii bararkii uu ka dhacay nabarkiiba wuxuu noqday nabar hore waabuu baaba'ay buu ku leeyba de maxaana ninkii aan ilaa shalay eryanayey een ku lahaa qaadka ka celinayay iga tagtahay aanan u yeedhin maan sheekh soo fadhiiso soo sii qaadka shaaha soo sii baastada soo sii aan ku waashay oon ninkii qaylsiiyey oon lacag siiyey oon wuxuu yidhi aamini ma waay buu inaan iminka aan xor ahay oo ninkiina uu bogsaday dee wuxuu yidhi ilaahay dad badan oo la weheliyaa jiro ilaahay waxaan u sakhiray ayaa jira buu oo ninkan waalan baaba ka mid ahaa oo kiibaa ka mid ahaa badday geliyey sheekhii badday geliyey markaa wuxuu yidhi kelmad aanu sheekadan horta ninkani markuu iga sheekeeyey aad baan u qoslay idinkuna waa jeclay waan u malaynaya inuu qoslaysaan sheekadan nin ay isla fahansanaayeen unbaa annagoo wada soconno ku yidhi waxbaanu nidhi markaasuu yidhi anaa ilaah la kaashanaya kii kala odhanaya
u fahansanaa kana markaasuu ninkii madaxa kale yiri war iska hubsaniyo ilaahay la kaashanaya oo markaasuu yiri waa maxaa ku haray sheekhtay waxa ilaahay la kaashanaya ilmaha markaasuu ma ogtay wax naga soo maray dameema ogi anaga ka sheekayna daba dhageyso taasuu iga sheekay marka maalin dambe uga sheekay dhowr qof oo kale anagoo iska fadhina te qosol bay rafteen sidaasaan ku asranay idinkeeda la wadaago marka dhamaantii waa salaamintii sheekooyinka kor u qaada te like iyo subscribe saar kanaalkana haddii aad garab gashaan sheekooyinka waa sii wadaya dhamaantii waan salaamanaa maalin wanaagsan